دو بوارك عبد الغني وحسنا يا مركور ولياشا سمرة أبو طلبة أخوياك أبواننا دومرك بليرة بارس عاقبة يدمعني تقول سعود المغباياشا والسلام الله سلام أجهاد وشرفنا وحنا مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa farxad weyn ah ilaahay mahadiis weeye ballanqaadkan waxaan ballan qaaday bil ka hor ma aqaan saa xasuusataan waxaan ballan qaaday inaan soo bandhigi doono hadduu alla yiraahdo 1 December markaan ku dhawaaqay musharaxnimadeedii ma aqaan xasuusataane waxa ka soo wareegatay bil iyo laba beri barnaamijkayga siyaasadeed ee ku aadan 2019 ilaa 2024 buugga waa laga hadlay intii akhrisay baa sheegtay anigu waxaan buuggan u diyaariyay inaan muujiyo inaan doonayo inaan wax dhab ah qabto oo aanan doonaynin warqada beenbeena inaan intaan isku soo sharaxo xil ku helo kadibna raad raac aysan yeelan shaqadii aan qabtay waxaan rajaynayaa insha Allah inuu ii noqon doono aniga iyo dawladaba buugna haga na tusa horumarka iyo baraaraha Puntland walaalayaal waxaan rabaa inaan dhowr waxyaalood ka hadlo anugu taariikhdeeda oo kooban oo wanaagsan waxaan ku qoray buugga wax badanna waan sheegay dad badan oo reer Puntland iyo Soomaaliba waa taqaanaa 14 sano waxaan ka soo shaqeynayay amniga iyo horumarka Puntland waxaan ahay xogogaal dhab ah waxa ka jira dalkeena iyo qaaradeena guud ahaaneed ee bariga Afrika iyo gacadagma cadmeed ilaa Yemen waxaan ogahay waxa ka socda iyo xogta dhabta ee ka jirta ha noqoto mid amni ha noqoto mid dhaqaale ama ha noqoto mid arrimo bulsho maantay Puntland waxaad ogtihiin inay ka jirto amni habacsan waxaad ogtihiin in qaybo ka tirsan Puntland ay gacanteena ka maqan tahay muddo dhan 11 sano amnigu waa nolosha furaheeda koowaad rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka bini'aadanka hadduu subaxii soo kaco haysto nabad haysto maalinta wuxuu cuni lahaa oo 3 waqti ah caafimaad qabo wax ka maqan ma jirto macnaha ay nabadda leedahayna ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi ibraahim markii qoomkiisu ay ku rideen godkii naarta ahaa waxa la yiri qulna ya naaru kuni bardan wa salaaman ala ibraahim dabay noqo qabow iyo nabadgelyo hadii la oran lahaa qabow kaliya noqo nabigu meeshaas ku dhiman lahaa Soomaaliya waxa la raaciyay nabadgelyada wax walbana waxa ugu horeeyay nabadgelyada Puntland waxaan ogahay dhibta ka jirta
waxaan hayay qayb ka tirsan amniga Puntland waxaan aaminsanahay maantay in qaybtii aan hayay lagu joogo Puntland oo ay Puntland maanta ku hurto waxaan isugu soo istaagay siyaasadda iyo kursiga ugu sareeya ee jagada Puntland waxa weeye inaan israacsado amnigii iyo siyaasaddii si aan u dhameystiro dhibaatooyinka jira ee xagga amni si ay gacmahaygu igu buuxsamaan waxaad ogtihiin far kaliya foolima dhaqdo ciidankii aan xukumay ee BSF iyo ciidamada kaleba si xoog leh bay u sugayaan amniga saacadan aan joogno haddaysan ciidanka Puntland maanta jiri lahaynna howlkan si nabad leh isugumaan nimaadneen waxaan Ilaahay uga baryayaa intii ku dhimatay qarax miino ku dhimatay iyagoo waardiye ka haya wadooyinka magaalooyinka waaweyn ku dhimatay gaari la rogmaday oo ciidamada Puntland Ilaahay inuu janno firdowsa geeyo waxaan kaloo Ilaahay u baryayaa inuu caafiyo inta hadda dhaawaca ah oo yaala isbitaalada ama guryaha Ilaahay ha ka kiciyo dhaawaca oo iyagoo nabad qaba shaqadoodii ha ku celiyo walaalayaal amnigeenu way sahlan tahay in la hagaajiyo haddii la helo xogogaal dhab ah waxaan ogahay maanta cadowgeena koowaad inay yihiin al-shabaab daacish iyo Soomaalidiid waxaan ogahay inay sahlan tahay in la iska dhiciyo waxa wax sixi kara waa madaxa qofka bini'aadanka haddii laga gooyo labada lugood iyo labada gacmood waa noolaan karaa waa gurguuran karaa laakiin haddii madaxa laga gooyo waxa sugtaa waa in godka lagu geeyo waxa wax sixi kara waa head of state ama madaxa ugu sareeya ee dawladda waxaan rajaynayaa inaan dhisi doono ciidamada Puntland waxaan ballan qaadayaa inay heli doonaan tababar joogto ah mushaaraad joogto ah caafimaadkooda la daryeelo oo joogto ah iyo xuquuqdoodii hadday dhintaan iyo hadday dhaawacmaanba waa ballan qaadaya insha Allah waxaan kaloo ballan qaadayaa inta ciidanku markuu helo inay ciidankuna shaqadoodu si dhab ah ay u qabsan doonaan oo aan la yeeli doonin ciidamo baracayiman iska fadhiya waxaan doonaynaa ciidanka inaan ka faa'iideysano markay fududeeyaan difaaca dalka iyadana waxaan ballan qaadayaa askarteenu inay noo noqoto kuwa dalka noo dhisa oo iska wax u qabso ku dhisa hadduu Ilaahay raado haddii aan xilku ku guulaysto ciidanka aan dhisno amniga ka shaqeynaya kaligood wax qaban kari maayaan waxaan bulsho weynta reer Puntland ka codsanayaa kuwa waliba dalka jooga inay ciidanka markaa la shaqeeyaan oo amnigu askariga tuutaha qaba kaliya ma keeno amniga waxaa keena qofka magaalada jooga ama deegaanka jooga ha noqdo gaariga baska ah kan wada kan dukaanka u furan yahay gabadha ka joogta meesha caafimaadka ardayda jaamacadaha dhiganaysa haddaysan iyagoo la shaqeyn ciidamada waxa amniga la horumarin karaa ma jirto waxaan ka codsanayaa marka inaad wadaniyad qalbadiina gelisaan oo wixii dib ku ah deegaanka inaad sheegtaan oo ciidanka u sheegtaan iyadana waa codsi haddaan xilku ku guuleystaan shacabka ka codsanayo ma yeeli doono mana dhici doonto in qaybo ka tirsan Puntland la haysto oo dadkii deegaanka deganaa ee qaxooti ku ahaadaan
meelo kale ma yeeli doono Puntland kala maqan Puntland aan saysan Puntland dhaawaca waxaan rajaynayaa haddaan ku guuleysto Puntland caafimaad qabta Puntland dhameystiran inaan muddo kooban gudahood madaxweyne u noqon doono dowladnimada Puntland 20 sano jirsatay wax badan waa la qabtay wax badanna way inoo dhiman yihiin waxaan rajaynayaa haddaan xilka ku guuleysto inay hirgeli doonto dowladnimo dhab ah waxaan ognahay dowladnimadeenu inay ku kooban tahay inta badan wadada dheer ee laamiga ah waxaan maray sidoo beeldaajigu sheegayba dhul fog oo ay adag tahay dadka intiisa badan inay tagaan oo Puntland ka tirsan dhulkaas waxa degan dad reer Puntland ah way adag tahay inay hari gooraale helaan adeegii bulsho ee dawladdu u fududin lahayd waxaan ballan qaadayaa dowladnimadeenu inay ka hirgasho deegaanada Puntland oo dhan waxaan ballan qaadayaa in aan si dhab ah oo aan naxariis lahayn wala dagaalami doono musuqmaasuqa kaasoo ah waxaan ragaadiyay oo maanta Soomaali iyo Afrika meeshii joogta dhigay musuqmaasuqu waa cadowga koowaad waa cadowga aan muuqan cid allaale cidii musuqmaasuq sameysana sharciga ayaa qaban doona kana sareyn doona waxaan sareysiin doonaa sharciga walaalayaal waxaad ogtihiin sharciga annaga ku nool ee asaga nuguma noola haddaanan sharciga la sareysiin horumar jiri mayso nabad jiri mayso kala dambeynna ma jirayso waxaan ballan qaadayaa sharcigu inuu sareeyo waxaan dhisi doonaa maxkamadaha musuqmaasuqna way ka marnaan doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo xogagaalnimadeedu waxaan ogahay wax dhab ah oo dalka ka jira cadaaladda haddaan wax yar ka yiraahdo walaalayaal waxaa jirta cadaalad la'aan ba'an oo ka haysata dadka bulshada qaybihiisa hoose waxaa dhacda in cadaalad darro lagu sameeyo dadka intaan muruq lahayn waxaan ballan qaadayaa inay cadaaladda sareyn doonto hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamij aan aad u jeclahay baan laba eray ka leeyahay iyaduna waxa weeye dhalinyarada wax badan baa waxa la yiri dhalinyaradu waa awoodii berrito waa mustaqbalkii berri iyaga waxa qabanaya yeeli mayno berri maanta taagana berri baaba dhiman karnaaba berri aakhiraba ka sokaysa dhalinyaroy xilkan amaanta raadinayo waa albaab shub ah waxaan doonayaa inaan jabiyo waxaan ka codsanayaa albaabka shubka in la jabiyo maadka way sahlan tahay qisay yar baa waxay ka dhacday China nin oday ah baa wuxuu deganaa tuulo ku taala wadanka China magaaladu u shaqo tagi jirayna waxay u jirtay 15 kiiloomitir shaqada markuu aadayo waxay ku qaadan jirtay ugu yaraan 7 saacadood inuu safar galo soo noqdo sababtana waxa keentay magaalada uu degan yahay tuulada uu degan yahay magaalada waxa u dhaxeeyay buur weyn buurtaas marka wadadu de waa la wareegaysaa muddo badan bay qaadanaysaa maalintii dambe uu fakaray wuxuu go'aansaday buurtan inuu jabiyo subax walba 2 saacadood buu wuxuu u qaybshay inuu intuu soo qaato faas dhagaxii uu jabiyo bil markuu waday hal bil baa dadkii tuulada deganaa ka war heleen waxa loo sheegay maamulkii magaalada waxa la yiri ninka odayga ah dib buu dareemay wuxuu doonayaa inuu buurtan jabiyo si ay u sahlanaato inuu magaalada shaqadiisa subax walba u yimaado muddo saacad kooban dawladdii way soo orday waxay ka baqday in saxaafadda iyo lagu ifiyo golii deegaanka iyo duq degmada way soo ordeen
buurti baa la jibiyey laami baa la geliyey waddaa loo sameeyey xilkaan raadani waa saas oo kale waxaa sahlanaan doonta dawladnimada iyo xiriirka u dhaxeeya bulshada iyo dhalinyarada xukuumadaydu waxay noqon doontaa xukuumad u adeegta bulshada reer Puntland guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada dhici mayso jaamacada ka soo baxday master ah rajaynaysa shaqo inay hesho guryaha hooyooyinkoo dib ugu noqday oo wareeray kadibna tahriibay ma dhici doonto hadduu Ilaahay yiraahdo ma dhici doonto dhalinyaro shaqo intee apply garayso ama shaqo codsato lagu riixo qabiil reer hebel baa tihiin idan siin mayno annaga shaqo halkaa ka bax ma dhici doonto hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan loo dadaalin oo aan loo dhiman oo aan loo dhididina lama helo dhalinyaroy doorashada Puntland waxaa ka dhiman 4 casho ama 5 casho hadda waxaa loo baahan yahay isbeddelkiin la raadsho oo la kaco oo la muujiyo awoodda aad ku leedihiin Puntland oo la muujiyo awoodda aad ku leedihiin Soomaaliya waan rajaynayaa inaad wax sameyn doontaan isbeddel dhab ah sameyn doontaan saameynteeda aan yeelan doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxa kale oo rabaa inaan iyadan sidoo kale si wanaagsan uga hadlo una mahadceliyo muujiyana xuquuqda ay leeyihiin waa kuma waa haweenkeena sharafta leh walaalayaal waxaad ogtihiin Soomaaliya inay ku badbaaday hooyooyinkeena sharafta leh waxaan ognahay koolada isku haysta qoysaska Soomaaliyeed inay yihiin hooyooyinkeena raggu ma sameyn karo iskuma hayn karaan dadka inta badan laakiin qaxi iyo burburkii Soomaaliyeed waxa laga bartay hooyooyinku inay yihiin koolada isku haysta bulshada Soomaaliyeed ama Soomaaliya ha joogaan ama qurbaha ha joogaan waxaan ballan qaadayaa hadduu Ilaahay yiraahdo hooyooyinka xuquuqdooda inay heli doonaan ma dhici doonto hooyo ama gabar tiraahda waana dulmiyay maanta waxaan ognahay in gabdhihii reer Puntland iyagoo wax bartay doonaya inay cilmigii Ilaahay baray dadka reer Puntland uga faa'iideeyaan aysan helin xuquuqdoodii waxaan ognahay inaysan ka qayb qaadan inta badan siyaasadda anu maalin luwatay ereban ku iriyo waa la qabsaday waxa la maxaa u tiri haddana waa leeyahay waxa weeye 1847 Mareykanka baa aad waxa loo dulmin jiray dumarka waa la adoosan jiray maalintii dambe talal isweydiiyo waxa la yiri gabdhaha maalin waa la dulmiyaa xuquuqdooda ma helaan see ragga ku soo gaari doona ragga ma gaari ragga iyo dumarka ma sano Ilaahay ma sameyn الرجال قوامون على النساء ayadaas dhinaca kama marin laakiin haddana saasay tahay waxaanu doonaynaa inaan xuquuqdii lagu tuman nisaakum harthun lakum fatu anna ayada quraanka ee Soomaaliya dumarkiinu waa beertiina gabdhihii waxay sameeyeen law enforcement-iga ama hay'adaha ciidanka way qorteen waxa la arkay Mareykanka maalintii dambe gabdho ciidan ah oo biskooda wata oo kooy geel ah kooy boy baa maqajo kooy geel la yiraahdo tema qaan gabdhaha reer Puntland si askar ku noqon doonaan insha Allah xuquuqdiina waa heli doontaan dawladnimadeena waa ka qayb qaadan doontaan xaq dhab ahna waa ka heli doontaan dadaalka ha joojinina oo dadaalka wada kullee anu hadaan ku guuleysto mar walba xuquuqdiina waa helaysaan oo dulmi dhici mayso walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa qabanqaabayaashii xafladan sharafta leh quruxda badan
ee lagu dhigay hoolka jaamacadda East Africa waxaan kaloo u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda oo ugu horeeyo Mujaahid Aadan Shaqdoon iyo ardayda ka qayb qaadatay qabaqabadan iyagana waa u mahadcelinayaa ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa kulankeena inuu noqdo mid barakaysan mid ay guuli ka dambayso hool kulanka noogu xigana diyaaro madaxweyne ah baan insha Allah suuraysan doonaa Puntland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ha jirto ha loo istaago cadowga in iska dhiciyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh